caaqil cali cabdi cali oo ka mid ah xubnaha golaha cuqaasha ee buuhoodle oo maanta wareysi gaara siinayay telefishinka caalamiga ee Somali News ayaa iska casilay xilkii caaqilnimo uu hayay beel ka mid ah beelaha dega gobolka Cayn. Sidoo kale caaqilku waxa uu ka hadlay dilal ka dhacay gobolka Cayn isagoo sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo guud ahaan nabadda deegaanka. Waa kan caaqilku amuurahan ka hadlaya. cali cabdi cali ku magac dheer cali dahable waxaan maanta halkan war-saxaafadeed aan ku qabtay uu macnihiisu yahay in aan ka tanaasulay si rasmiyana aan isaga casilay caaqilkii beesha reer Shawwe cali gari caaqilkaas oo aan muddo ku soo shaqaynayay inaan maanta ka tanaasulo oo si rasmi ah isaga casilo ayaa war-saxaafadeedkan u qabtay. aad iyo aadna waad u mahadsantahay maatinka aad ii timi. waxaan halkan si rasmiya uga mahadcelinayaa oo si runtii aad iyo aadna u bogaadinayaa cuqaashii beelweynta cali gari, cuqaashii axmed garaad, cuqaashii gobolka Cayn, cuqaashii iyo ismadii guud ahaanba gobolada SSC ayaan si rasmiya halkan uga mahadcelinayaa sidii wanaagsaneyd ee aan u soo wada shaqaynay. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. caaqil malays oran karaa iyadoo aynu ognahay in dhowaan magaalada buuhoodle ardaygaad ka soo jeeda oo nin dhalinyaro ku dilay isla markaana gacantaas ku soo dhigtay, haddana ninkii dhalinyaradaha isla beeshu ay la fakatay, dil kalena shalay u dhacay, laba qof kale ay dhimatay. malays oran karaa waxyaabahaas u keenay caaqilka cadaadis oo aad xalka caaqilnimada iska cashishay. runtii waa mahadsantahay cali dhagjarow. waqti baynu ku jiraa akhri saban ah oo fitnadiisu ay fara badan tahay oo wax cidii wanaagga iyo tasliixa ka shaqaynaysaa ay itaal yar tahay oo dadka munkarka ka shaqaynaya ee isu bahaystay foolxumada ay xoog badan yihiin. marka kollayba iscalaasilaadaydu waxay qayb ka tahay culaysyo waaweyn oo igaga yimi beesha dhexdeeda kuwaas oo aan xal iyo maare kale u waayay. marka waxaan doortay dee shakhsi igaga habboon ama iga firfircoon oo wax qaban kara in shaqada ay u bedeshaan. aniguna runtii muddana waa soo shaqaynayay waana igu adkaatay shaqadaas duruufo badan oo ila xidhiidha iyo duruufo badan oo beesha igaga yimi. aanu warka ku hayno markii ninka dhalinyarada lala baxayay jeelka adigu aad joogtay ama xabsigii aad ku soo xidhay marka hore, maxaa ku soo gaadhay? warbaa sheegay in dhaawac jirkaaga ka muuqdo, nabarra kugu dhacaan, bal xaaladaada iyo si wax u dhacaan bal laga waran. anigu hortada waa anigan hadlayo oo waan fiicanahay, waa nabad qabaa, caafimaadkayguna hadda waa wanaagsan yahay. laakiin ninkaa dhalinyarada ee shaqsigiihii markii uu wax dilay anigu dadaalkaygii waajibnimo ayaan ka gutay, waa aan soo qabtay. waxaan ku soo xidhay saldhigga booliiska. ciidamo badan oo beesha ka tirsanna waa ila ilaalinayeen oo gacantaana ku haynay. marka arrintaasi wixii ay ku dambeysayna haddee waa laga wada dheegsan yahay oo faahfaahin uma baahna. horeysa waxaan halkan si rasmiya uga tacsiyadaynayaa dhimashada 3 qof maraysa. markii hore uu dhintay ninka uu dilay ninka beeshayada ah, markii dambena 2 nin oo ka dambeeyay oo isla beeshayada ah ay dhinteen. dhammaan dadka dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistii jannaha ka waraabiyo. dad aan waxba galabsan oo wax lagu leeyahay jirin bay ahaayeen. Soomaalidu waa taqaanaayo had iyo jeer gashi baa lagu lahaa iyo godob baa lagu lahaa iyo fulaan baa lagu lahaa iyo waxbaa la yiraahdaa. wax dadka lagu lahaa oo lagu soo marmarsooday ma jirin, bilaa sabab bay ku dhinteen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariistii jannaha ka waraabiyo. ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen oo annagu aanu ka mid nahayna cawil iyo bedel khayr qaba Allah ka siiyo. waxaana ugu baaqayaa dhammaan labada beelood ee dhibku kala gaadhay in ay qasaare maalin nabad waa la yaqaanaa, colaadna waa la yaqaanaa. bahdeena ama reerkeena ama deegaankeenu waa u bisil yahay colaad waxa ay tahay iyo nabad waxa ay tahay. waxaan ugu baaqayaa bilaayo maalinba meesha ay maraysaa lagu xakameeyaa. markay midhka ahayd waxaan isku daynay inaan midhka dhaafin oo aan xakamayno. imika oo 3 maraysana waxay u baahan tahay in halka lagu xakameeyo oo aanay dhaafin. وعلى اسماء شعار الدكتور ورسل فيش عالمي الصومالي magaalada buuhoodle xarunta